hanaan iyo wanaag iyo farxad ruuxa ee basiyo hanti lagu nagaadiyo ruuxa barwaaqa ku noolow haddii damiirtaadu ay shaqaynayso qalbigaagana uu diirnaxayo dib u milicso oo dhadhami qisadan qiimaha ay xambaarsan tahay iyo ruuxa qisada ku dhacday qaabka uu u dulqaad badan yahay ruux adduunyo joogow maxaa aragti ku laaban culimaauddiinkii kula sugnaa isbitalka fu'aad waxaa fajiciso ku noqday cudurka haya wiilka qur-aankii ay saarayeen markii ay dhammeeyeen weli fu'aad wax hadal ah waa laga waayey mid ka mida culimaauddiinkii ayaa yidhi maanta gelinka dambe waxaa la aasayaa leyla marka waxaa ila wanaagsan in aynu goobtaasi geyno wiilka si uu u qoosto maadaama uu yahay wiil muslima isla markaana aaminsan in koomkan laga tegayo qof walboo adduunyada ku noolna maalin uu geeriyoonayo go'aankaasi way wada qaateen dhammaan culimmadii isbitalka kula sugnaa fu'aad waxaana la soo wada abbaaray hoygii uu yiilay maydka marxuumad leyla si markaasi loo dhaqo isla markaana loo aaso intii waddada la sii marayey mid walba oo ka mid ahaa culimaauddiinkii wuxuu afka ku hayay adkaar isla markaana wuxuu ilaah ka baryayey in jannadii firdowsayd ilaahay uu ka waraabiyo marxuumad leyla isla markaana fu'aad uu siiyo caafimaad iyo dulqaad maadaama noloshiisa dhibaato fara badan ay ku jirto waa wax aad u wanaagsan in loo duceeyo qofka muslimka ay dhibaataysan balse waxaa isweydiin mudan waa sidee maskaxda fu'aad wakhtiga loo ducaynayo bal ila dhegayso riyada ay ku jirto maskaxda fu'aad wakhtiga sidaasi loogu ducaynayay maskaxda iyo laabta meel kastaba aan joogne sidii laba mataana manka maisku hayna tuludu magayda ama mayra geelo intuu mooda galabee dhammaan maatidiisiyo martidiiba deqdo loo bixin irmaano iyo dhibaato weyn maayo boholyow ruuxii laga fogaado cidla keli ku noqda xubnahayga culays ayaa saaran naftayduna ma ogola inay u dhaqaaqdo halka la ii kaxaynaayo oo igaga qaraar dunida waxaa yaalla maantaba waxaan tegayaa guri uu yaallo maydka gabadhii aan jeclaa maxaan u noolahay oo aan beddelkeed aniga u dhiman waayey hadduu bili aadanku uu awood u yeelan lahaa inuu qabriga u weheliyo ruux geeriyooday aniga ayaa kow ka noqon lahaa oo qabriga u raaci lahaa leyladii aan jeclaa sidaa waxaa codsara ku yidhi fu'aad hase yeeshee culimaauddiinkii wax jawaaba ma aysan siin ay shayddaanka ka rajiimiyaan mooyaane daqiiqada kadib gaarigii ay saarnaayeen fu'aad iyo culimmadii waxa uu gaaray gurigii uu maydka leyla uu yiilay waa laga soo wada degtay qolkaasa ayaana fu'aad loo diyaariyey si uu halkaasi ugu nasto hase yeeshee shacab aad u fara badan ayaa guriga soo buux dhaafiyey iyagoo dalbanaya in la tuso wejiga fu'aad maadaama ay la yaab iyo amakaag qaarkoodba ay aamini waayeen qisada ku dhacday iyo dulqaadkiisa dadkaa waxay markhaati ka ahaayeen jacaylka uu leyla u qabay iyo nolosheeda sida uu uga qayb qaatay sidoo kale waxa ay ogaayeen in mar walba uu dhaqaalo fara badan ku bixi jiray si ay leyla iyo qoyskeedaba ay sara u qaadmaan isla markaana ay nolosha adduunya aysan ku silcin sidoo kale waxay ogyihiin inuu goobjoog ka noqday hantidii isaga laga qaaday oo nin kale ay ku guursanayso leylo maadaama uu ku guuldaraystay jacaylkii uu muddo sanooyina uu tabcayey ma aysan ka filaysanayn inuu intaa iyo in la ego dulqaado intuu kaashado haddana uu kaalin ka qaadanayo badbaadada nolosheeda waxay yidhaahdeen waa geesi taariikhda soomaaliya bog wanaagsan kusoo kordhiyey ee waxaan idinka codsanaynaa in aad na tustaan oo aan aragno walaalkeenna mucjisada noloshiisu ay tahay hase yeeshee faadumo jimcaale oo ahayd marxuumad leyla eedadeed ayaa ku tiri shacabkii waxaan idin leeyahay ilaahay ka baqa guriga mayd ayaa yaallo looma baahno qaylo iyo buuq aad u sarreeya haddaad rabtaan inaad aragtaan qabriga sii taga fu'aad isagaaba qabriga imaanayo isla markaana ka qayb qaadanayo aasitaanka leyla qof walboo shacabka ka mida isagoo hoosta iskala hadlaya ayuu meeshii ka tegey maxaa yeelay shacabka waxay ogsoonayeen faadumo jimcaale leyla eedadeed in ay qayb ka ahayd dadkii shabaqa u diyaariyey fu'aad isla markaana fikradaha kala
duwan ee qayaanada marxuumadda siiyey si ay fu'aad been ugu sheegto. la soco qaybta 10aad qisada ku dhacday fu'aad. qisadan waxaa qalinka u qaatay isla markaana idila socodsiinayay anigoo ah Cabdilaahi Balwaan.